waxaa hadda ka hor heshiis galay laba xaas oo isqabay waxayna ku heshiiyeen ciddii soo ziyaaratay gurigooda timaada inaysan albaabka ka furin qofkay dooniba ha ahaatee dabadeedna waxaa dhacday inay imaadeen ninka reerkiisii kuwa oo albaabka aad u garaacay labada xaas way is eegeen balse cid ka furtay meel albaabka wayna laabteen ayagoo daalan wax yar kadib ayaa waxaa soo istaagay gabarta reerkeedii kuwa oo albaabka gargaraacay dabadeedna intay gabartii ilmaysay ayay waxay tiri wallaahi uma adkaysan karo labadayda waalido iridda taagan in aan ka furi waayo albaabka ayayna ka furtay muddo badan ayaa ka soo wareegatay ilaa uu allah ku arsaaqay labadoodii 4 wiil balse ilmihii shanaad ayaa wuxuu noqday gabar taasoo ninkii si zaa'ida ugu farxay xoolo badanna uu qalay dadkii iyo deriska ayaa weydiiyeen kuna yiraahdeen si cajab leh waa maxay xoolahan badan aad u qashay gabarta ma aadan qali jirin marka ay wiilasha ku dhashaan si sahlan ayuu wuxuu u yiri tan waa tii albaabka iga furi lahayd ilaahu gabdhaheena Soomaaliyeed noo ilaali iyo gabar kastoo muslimada وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفك أن قبلها قيمه إذا قرنين قدرين تودا ما قرنين